السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاونا ويكن habeenkii markaan soo daalay ee soo shaqaystay meelaha soo wareego ayaan kula ku soo dhaco marka sararteedii soo dul fadhiistaa waana ku akhriday iyagana ku intii u geey horta wada salaamaya habeen wanaagsan ilaahay barday baaska hayna gaaya a'uudu billahi minash shaytaani rajiim bismillahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayyidina maxamed wa ala ali sayyidina maxamed waxaan leeyahay bulshooy wada salaamay aynu ducaysano ilaahay barday baaska hayna ka hayo ilaahay caafimaad hayna siiyo ilaahay inta bugtaha caafiyo ilaahay intii dhibaatada Allah naxariisto ayaanu leenahay inta bugtaha ilaahay caafimaad salaana ha siiyo nin walaal ku dhiban yahay ilaahay ka dulqaado dhibka inta kadib waxaan rabaa inaan ka sheekeeyo xoogaa waxaan la weydinka weynahay dhaqanka bal dhaqankii hore shukaansiga jooga maanta iyo shukaansinadii hore ee la soo maray dadku soo mareen ayaa rabaa bal inaynu isbarbar dhigno aan idhaahno keebaa ugu wanaagsan shukaansanada shukaan maxay haasaa wixii hore iyo haasaa waa hadda jooga keebaa ugu fiican inaynu idhaahno ayaa qurux badan aynu ogaano ka ugu quruxda badan anigu shukaansiga qaar maan soo gaarin dadku say shukaansan jiray beriga hore dumarku waa yaraa baa layidhi raadkooda raggu urin jiray halkay maraan horta mana yarayna dadka iska yaraaba dadkoo dhan waaba iska yaraa rag iyo dumar waa la yaraa marka waxaan maqlay raggu way haajiri jireen oo way tegi jireen habluhuna way heermi jireen horta waa yahay haddii dumarku yaraa maxay la heermayeen markay ahayn kumbi haanta biyood ha qabo dheer ku rid ha kafafee kor ka saar ee taa ha kafafee kor ka saar si laga guursaday soo dumarku ma heermayn raggii xagay markaa jireen waa tan isweydiiyadii mar waxay ku leeyihiin dumarkaa yaraa mar waxay ku leeyihiin dumarkaa heermi jiray dumarku way heermi jireen berigii hore niman bay dooran jireen yab hadda meel buu saarayn waa sarartaa gadaanka saaran way hadda raggu hadda waa adag yihiin runtii rag iyo dumarku waa adag yihiin hadda laakiin hadda waxaa yareeyay adkeeyay waa doqoniino ee ma aha rag yaraan waxaa jirtay berigii hore waxa la shukaansan jiray halkaas inantu geedka dhinaciisa ka meesay inuu kula dhigin cilugsan xagaa ka cabtaan salma annaguna sarmaan soo durugo maxaa qalateen sabeen alla sumalkeeda soo durugo akhirkase waxay isugu sheekeynayaan baa layidhi buurintaan israaci jireen kuwii dhexe ee kuwii anigu aan soo gaadhay ma awoodi jirin intay dhalinyaradu israacdo gabadhii inan in laysku ogaado wax xaaraan bay ahayd waayo inanta inamadooda dili jiray inanka laftiisa way dili jireen laakiin maxaa jiri jiray badhi wale mayaala order saaxiibada iyo saaxiibkii waxaa laga yaabaa inaad meel isugu timaada ama sinimooya ama meel sawirlayaal ah ama meel kale inaad ku yar kulantaa way dhici kartaa idinkoo dad la wataa inta badan waxaa laysuu gudbin jiray waraaqo jacaylig ma lagu qoray weli dhuux ma loo shubay adnasaanta dhabankiyo laga dhigay feedha dadaalkii ma lagu dhigay taasaa ka socotay berigaa marka hablaha yanamadu waraaqay soo qori jireen basa wadna yar lagu sawiri jiray dhin wadna yaroo cajiiba looda falaarood ka dhex duso halkaa wadna ka soo xaggaa mid wadda kasii dhacaysa laysu sawiri jiray moogta heesana waa lagu dhex qori jiray hees yarna waa lagu dhex qori jiray waxay doonta ha ahaato heestaas hees jacayladee baa lagu dhex qori jiray isna intaasoo kale soo sawiri jiray mase kusoo dhex qori jiray saaxiibkii buu soo dhiibi jiray iyana saaxiibadeed bay soo dhiibi jirtay inan had jeer wuxuu inuu kula saaxiibi jiray inamaa jira guryaha reeraha iska taga ama ay qaraaba yihiin ama ay maabti yihiin ama inanta ay wax isu yihiin waa ilmi isaga isxigaan ama si kale wax isu yihiin dad uun wax isku xidhan ama wuxuu la saaxiibi jiray qof kale oo adigu inanka inaadeertiisa iyadana saaxiibadeedoo kale deedna waraaqahaas uun badhiwalahaasaa wadi jiray kaasaa jacaylka wadi jiray xagaa u siisid maalin baa inama ii direen anigu koonfur joogna anoo inan yaraa markaan waxba fahmayn ma aqaan 10 jir iyo waxaan 12 jir waxaan dhaamin baa ama 11 walaal maasan jiri baa inama ii yimaadeen inamada markaa eedaanu ah
marka waxaa jirta meelaha hanuuninta oo kale dadka heesa oo dhalinyaro ah baa jiri jirtay marka inamadu kuwaasi ku jirin inan baa jirta marka cod macaan oo iyana xaafadda nala deganayd marka inantii iyo nimankii show way isyar dee way iska taqaanaa maxaa leedahaa muxuu ahaa talow waxa ay soomaalidu tiraahdo waxaa jira jacayl yaroo iskaga dhaca carruurta markay yareyn yihiin ilaa dhowr 10 jir yihiin 15 jir 16 jir oo jacayl aan jacayl ahayn laakiin jacayl yaroo waalana hoose ah mana inantii iyo nimadii waxaasaa dhex maray inamadii maantida bay soo dhaqaan gurigayga yimaadeen deedna waxaa leeyahay orodoo aamina noogu yeedh dhanta aamina la odhan jira aamina noogu yeedh wax ku tadaa aadan iyo baa ku doonaya halkan joogaan waay baan ku ah inanta hooyadeed bay la joogtaa aabahood bay la joogtaa faamiligii bay dhex fadhidaa imay sii ballamin oo eeg imay odhanin inantan markaad u tagtid u yeedho ama dhegta wax ugu soo sheeg may odhan noogu yeedhun bay yahdeen aniguna intaan isa sii daayey orod garab baan u tegey aadar jaac baan ku doonaya baan ku ori aaminaay islaantii inanta dhashay kabbay qaadayoo halkaa shafka iga saartay naagate maxay jiri aabaheed yaabna aniguna fulay waxaan ka baqaa hooyaday waxay ahayd qof ilaahu ku naxariistay kulul haddiiba layga soo dacwoodo sida mashiinka wallaahi raashinka lagu raqday ee mixdinka la yahdo ayay ii maraysaa dabeedna waxaan kasii fikiray nabarkii ku dhacay kama fikirinay islaanta hooyadaa bay u tegaysaa oo kuu sheegaysaa taasaa haddaba aniga igu noqotay wax cajiiba alla waqta ku dacweysay berrito talo saad yeeshaa alla maxaan ka baqayaa islaanta la ilaahayo rabbiga na badbaadi inamadii baan ku yidhi haa inamadii baa intay soo carareen halkay horayaashay qabteen bay waxay igala fogaanayaan hooyada inaynu maqasho deedna intay jiideen eedo saa ii jiideen xagay geeyeen maxay ku tiraa waa laysoo dilay oo maxaa tahay hooyadeed baa joogtayoo hee waxaan ku yidhi waa laguu yeedhay ebel baa kuu yeedhayo hee waa laysoo dilay shafkay dhaha kabigaga soo dhif wuu yidhi ash hooyaha u sheegin orodka kal guriga nabadgeliyo way naga tageen horta baakaa jacaylka la yidhahdo aniga dhaawac badan anigu aan aqoon dhaawac badan soo gaarsiiyey sidii la adeegsanayay markaa berigaa waraaqa la qori jiray hortaan waraaq ma qorin waan qoray waraaq runtii laakiin waddanka aan u qoray laakiin uma qorin qof magaalada la jooga waraaq ma qorin markaa waraaqa la isu qori jiray jacaylka waxbaa lagu qori jiray heesaa lagu qori jiray wadnayaal baa lagu sawiri jiray markaasaa fallaadhasaa looga dhex dusin jiray markaasaa kaala arag wax bahalo saasoo da-aya dhiig tiftifleho halkaasoo saa qalin cas loogu sawiro markaasaa dhiigku tiftiftiftiftifo alla kaalboolihii baa dhiig wadna qaar baa dee farshaxano markaas waxa kusay wadnihii dhinac ka casoo dee wadnihii oo caadi lasoo sawiro dhiigo saa isagii ka tifleya waxaasaa markaasa hablu iska di'i jireen moogta markaa shukaansigaasina mid buu ah hadda laakiin waa big wacba ka jooga maanta mid laga sheekayn karoba maba ahaba midda kale raggii berigaa hablaha way ixtiraami jireen aad iyo aad bay u ixtiraami jireen runtii raggan isagoo marigaa dee balwadine ma jirinin oo dadku inamadu qaad ma cuni jirin qaadka waxa cuni jiray rag lacag leh rag madaxa nin dhisan qaadkan hadda riyuu cunayaan ee aqalka dhexdiisa lagu cunayo ee mid weyn inanaya mid odayaya mid walba la jiidanayo ee halkaa lala fadhiyo waxaasi ma jiri jirin qaadka berigii dowladdii dhexe ay jirtay dee kontrabanka ragga madaxda ah ayaa cuni jiray labada duhurle markay qalayeen bay guriga isugu tegi jireenoo uusi baa lagu shidi jiray gurigaasoo qolkaasaa loo gogli jirayoo shaah iyo xawaaj weliba qolkooda markay ku qaayiraan uusi ku baxo wuxuu ahaan jiray wax udgoon oo cajiib buu ahaan jiray sigaarku xitaa wax udgoon buu ahaan jiray guriga marka sigaarkan hadda dibadda laysla taag waxaasi ma jiri jiray aqalka dhexdiisa lagu cabi jiray mama uri jirinba dabeedna dee raggaas halkaas intay ku qayiraan ku barjeeyaan isku dacaadiyaan ayay 7 fiidnimo kici jireen ama 6 5 dee 6 inta nin walba gurigiisa iska qaban jiray koobkiisa caana cabi jiray subaxina iska shaqo tagi jiray bahalka hadda 12 habeenimo kowda habeenimo jabane kii kale muxuu ahaa la leeyahay ma jirin marka dhalinyaradu balwad ma yirahayn balwadda waxay sheeko isticaadin kaftan
riwaayad baa timi gidaaradaaynu ka dhacaynaa xagaynu caawa qabaana halkaa waxaasay ahaayeen habluna waa la biqi jiro hablu inamada awood may lahayn walaalahood inay dee ka tagaan markaa waa la biqi jiray markaa waxaa ka baxay meeshii hadeerto intaasi way ka baxda telefon baa hadda la helay berigii hore waa laysu soo xiisi jiray warqaddu waxay ahaan jirtay markaad akrido alla warqadda 9 jeer baad akhriyaysaa ku celcelinaysaa waayo waxaa laga yaabaa wiil kadib aragba warqadda هذا ما سيجحون بس مر لي سكوت لي يا مر مركاسا لا سكوت لا وجع لا في لا واروح انا هذا بالكو حيسه مره بالكو ايج كيغي وحيسه لها شو كاسكو ولا سو هيسيا كا ارق حركو سوكي عاو halkaas iltiin halkaas ila qabanana caaw sokay caaw soo raac waxa soo aha runtii markii dambe dee ordo aanu keenay ishee shukaansiga iyo wixii dee xiisii wixii la bartayna waa ku xabada nagu riday laa ilaaha illa allah rasuulullah markaasaanu jaha wareera wada asqowni deedna hadeerto islaamihii anoo kale ahay berigaa naga qaaday dee ila waanu soo marin shukaansigaa badan ee quruxda badan markiiba dagaal bay naga hor keeneen ayaa hadda markii aanu waaweynaanay maartay carruurtii naga kortay ama shukaansiga dib u bilowday moogtay markaas inamada yaraan ugu barbaranayaan ها ايش هو ليفل ودا maxay waxay u dhintay waa leeyahay ايش هو just number wala barada meel kale waa weyn wala the number line mid ku leeg doono eed maxaa ka khaldan haas kuwa way rabeega waxa waa nafbar la ibni baata haysata alla maxaa shukaansigii baabiiseen alla maxaa shukaansigii baabiiseen oo hoojiseen dadku waxay ku qurux badan waxay islaag ba isku qurux badan dad kala weyn maxay isu sheegayaan horta dadka kala weyn maxay aniga muxuu sheegayaan isku history ma manihini ila sheekh sayid maxaa abdul xasan ma ka sheekeynay isagu ilaayo eedeedku ka sheekeynay wixii ka dambeeyay iyo dagaalkii habraha iyo meelaha uu taagday oo bargaas u garanayay wuxuu qurux badan wax kula age ah kula number ah kula egg isku system tihiin wax wada fahmaysaan isku sheeko tihiin ilaa iyo geer casaiyo maxaa waxay abaarihii lafcad iyo dabal kale tiyaawta maxay gaari saarkii iyo waxa kula garanaya dee abaaraas babaana garay aniga laftada faanka boqolka dhigay buu wax kula garanaya dee ay waa dadka markay kula sheeko garanayaan xitaa meel xitaa at least qaxi dadka soo wada qaxeeyo markaad meelowda marteen alla waxa la marbeega waan joogaa halkaas aan joogay waxa saar allah alba de sheekaduna waxay maxaa ka soo maray war waxa saabay leedahay waxa beesh ku fiican tahay laakiin dhalinyarada waxa leeyahay shimbirkiisu la duulaayo hablaha dhalinyarada ah ee idin laaleeg doonta ee dhalaya dhaqmaya hablaha dhalinyarada waxa leeyahay ilmada isku adkeynta iska dayo irsaaqada ilaah baa bixiye dhalinyaroy iskuursada fusuqa iyo dhibka iyo baahida iyo xumaanta inta waa ka ladnaanaysaa oo guurkan 3 sano socday 3 years baanu isjeclayno oo maxaad riisay dul qabanayseen maxaa khriisay 3 years qof magaalada ila joogaan 3 years way baan maxaan u sheegayaa qof ka maqan oo aan jeclaayo oo aan sugayo imanaya waan garan karaa laakiin 3 years baanu magaalada hargeysa wada joognaa burco wada joognaa ومحا 3 years كولا ودا قبنيسين اوكي 3 years waxa weyna go'aan leeyahay xitaa waxbarasho markaas ku jirto weyna wuxuu go'aan leeyihiin aad leedahay okay dusareen hadda dhigana aan dusada sare jaamacadda ka baxno okay waa sax laakiin wuxuu waa inay yihiin xitaa reerkin weyn ogyahay markaa waad u sheegtaa waad inankaas la socdaa oo gurigiina idinku yimaadaa inankii la ogyahay inaan wax baranaysid iyo inaad wax barasho u kala maqantiin loogyahay at least waliba waa in la isu kiimeeriyaa marka waxa weeye in madaxyaalo meeshii waxa nagu qaribteen oo shukaansiga waa nagu qaribteen oo waa waasheen oo waa wajaqiseen oo baalkiiba hadda wuxuu xaytal boosh buuba noqdo xagaa joogtaa maxaad xidhantahay buu hadda maraya dee mooji xilaahay igu xidhay bada xidhana xijaabkaygi macaamara sitaa ayuu marayaaba marka baalka aynu hagaajino oo systemka ku soo celiya guurka
oo guurkana gayaan ka dhigta guur waa gayaan gabadhay guurso gayaanka inanow maalinta aad waxa la inankaagu hiilkaaga baahan yahay waa maalintaad hooyadii guursanayso in adeerta haddaad guursatid natig waxamaad soo kordhin walaa waxamaad soo kordhin guurka iyo qiimihiisa iyo shukaansiga iyo qiimihiisa wuxuba waxay ku qurux badan iyo guurku gayaanku ku qurux badan war berigii hore waa la isku baxsan jiray marka dagaal dhaco horta anaga lubaanta isku badnayn marka dagaal dhaco ilmaabtiyadii ba bixin jiray abtiga is bixin jiray dadku waa is bixin jiray waa la is qarin jiray waa la isku dhaaran jiray rag baa lagu ixtiraami jiray hebel bay ilmaabti yihiin oo hadilna hadaba lama dilayo hebel bay ilmaabti yihiin baa la odhanayaa marka guurkii iyo wanaagii iyo sharaftii iyo wixii lagu lahaa hadda ma jiraan foolxumada kaga dardasha hadda joogta wada digriyasada wada madmadooba wada xaasha adiyaabi soo labadaba ay wax carruurta qurux waxa u yeeri jiray oo dadka qurux u sameyn jiray dhiigga kala kaanka ah oo tiisan bay wada noqdeen carruurtiini waxbaa ka wada khaldan ila dhiiggu markuu ehel yahay marbuu aanu shaqeyn special dhiigga habarwadaagtoo kale iskuma shaqeeyo badana hadda waddankayga ba iskuma shaqeeyo carruur badan oo tiisan arkaysa Soomaaliya haysato idinku maba garanaysa oo tiisanka nacas baa taqaaniin waa nacas dhaandhaan weeye waa dhaandhaan waa tiisan ma dhaandhaan marka guurka fogeeya hablow guurka fogeeya ha ka fakerina idinku dumar baa tiina maxay hadal wax istilaya gabadhi waa guriga ay u dhaxday weeye guriga ay u dhaxday weeye gabadhi waxaan xasuustaa beri baa sheekada waa sheeko kala dheereen way idinka daynayaa iyar baa idinka soo qaaday islaan eedadaya waxa qabay reer sool ergada ka soo qaxiyeen waxay keeneen xabar baa guriga yar looga iibiyey odaygoodu marka guriga looga iibiyey haddana kiina laga soo saara waxaa la keenay kismaayo anigu waa la socday markaasaa waxay tiraahdaa waxay kaga dhigtay SNM moogta alla SNM ay rugmo anigu waxaa ma idhahdo aniga eeday tay moogta inanta inadeerta ka xigtada isla hel marka gabadhi waa guriga ay u dhaxday marka anigu maba la yaabaynin dee carruurteeda ahayd meel ay hooyo gurigeeda ka baxsanaysaa dumarkiina ficilka midhan ee carruurta ay haystaan ka cararayaan reerkayagiina waxaan leeyahay carruurtiina iyo ninkiina tiin reerkiinu 4 casho carruurtaada ku hayn maayo turu weeye 4 casho wallahi haddaad ula qaxdina 4 casho ku haynay reerkiinu laakiin adeerkii ama awowgood ama reerkoodu waa haynayaan marka guurka gayaan ka dhigta oo ha u fakerina waa reer hebeliyo waa reer in yaroo koonfurtaas iska yar ilaaliya hoogaa waa khatar nimankaas laakiin dad fiican way leeyihiin marka guurka ilaahay idin sakhiro hablaha waxaa leeyahay gayaan guursada inamadan waxaa leeyahay gayaan guursada run baan idin sheegaya gayaan guursada gurigaa kusoo daartaan kusoo laabanaysa berigii hore waxaa wada seexan jiray ilma adeer inama ciiddaa ka badan baanu wada seexan jiray cid ku gudaysa iyo cid la hadlaysa iyo inan isyaqaano iyo waxaan haddeerto labadii ilma adeerka ruma ahaa ayaa la kala ilaalinaya way loo kala ilaalinaya in adeerka ruma marka laga ilaaliyo ma nolol baaba ii taala dee way iskursanayaan haye way isku daqaqabayaan inantii gurigii la gabatay in adeerkeed baa jooga habar walaxay ka warwaraysa yaa guriga jooga waxay ka baqaysaa kii guriga joogay 100 inan baa guriga joogi jiray 100 dhalinyaro baan intaan aroosyada qabano meelaha qabano soo yaacno miyiga marka joogni magaalada joogni soo yaacno baan meel ku daadan jiray seexan jiray wallahi waxaan xasuustaa anigu ceergaabo ka imi 87kii tan dagaal ku dhicin aanu arooskii aanu sidaa meel guri qol dhan oo halkay wada caawitaalo aanu sidaa inaan isu dhinac seexanay cid eegaysaa ma jirto because waa ehel laakiin hadda inaabtigii baa lagala cararaya oo inadeerkii baa lagala cararaya oo cid walba inantii waa lagala cararaya oo cid waliba kufsanaysa oo cid waliba waxbay weydiinaysaa waa dhimasho waayo waxaan oo dhan waxa keenaya waa guurkan isku soo noqday waa guurkan dib isugu soo noqday weeye nin wala ku leeyahay nin walaba hadhub talo halahaaga la hor joog bay taagan yihiin no ma hadhub wallahi wasiiro baa taagantiin waayo inanku cid u abti ma laha adeer buu leeyahay adeer malaabti ma laha malaabti buu yahay ma adeer buu yidhahdaa muxuu yidhahdaa waxaan waxay u baahan yihiin in aad iska daysaan
oo guurka gayaanka guursataan gabadha gayaanka ah markaad guursato way sharfaysaa reerkaaga xitaa sharaf bay leedahay way ku sharfaysaa inaad artaan laakiin xukuma taq anigu reerka xuma aqaanba markaa guursada gayaanka waa wax qurux badan wiil la abti buu leeyahay abti fiican u raadiyay habla beriga hore waa la raadin jiray inanta reer hebel baa loo guursan jiray haddeer wallaahi kadin kasoo dhifanayaan ma garanayaan baa kadinkay kasoo dhifanayaan yeelkale kadin kasoo dhifsa qola kale kasoo dhifsada oo idin guryaha isugu soo noqonina cawda billahi waan wadi salaamaya hadalka alla maanta hadal badnay anaaba iska yaabayba maanta waxaan ku xarkaan goosta war bal raalli ahada mar haddii jacayl iyo waxaa la dhex galo waa la silaa waaye Hey guys, don't forget to like, subscribe, and turn post notifications on, and I'll see you guys next time. Bye!